أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جانا كان في سنة وجنال دكتور بانا ما أنت سدا وقتهين وحتمنك عذر ما أنت برنامج حابدنا تمنك عذر سنهار وصو هذا اللي وحنك سو هذا اللي جاسكا ما أنت محك هذا اللي دونا عذر كلوي خانو عقاد شو مركا إن شاء الله دكتور بانا دور أو ويدين دونا سؤالك سابسن عقاد شوجا أسين ودنا وجواب دونا إن شاء الله دكتور بانا كسود واو محكري لهاد برنامج كس اوكي محمد aad ayaa u mahadsantahay insha Allah taala sidoo hore walaalkay noogu sheegay waxa ka hadli doona 10 cudur ee ugu badan magaalada Muqdisho hore waxa ka soo hadalnay gaaska sidoo noogu sheegay maanta waxa u fadhinaa insha Allah taala cagaarshowga aan rajayna insha Allah inaa wax badan naga faa'iido doontaan insha Allah hadan waxaan sii gali doonaa su'aalaha aan weydiin lahaa idinkuna ka faa'iido doontaan insha Allah doctor baan waxaan ku weydiin lahaa warbixin kooban inaga sii horta cagaarshowga muxuu yahay okay waa su'aal aad iyo aad u fiican dadka Soomaalida badana cagaarshowga marka la ordo waa eray Soomaali ah dad qaar waxay u yaqaaneen jaundice qof walba si ay u yaqaan laakiin medical word ahaan ama eray cilmiyeed ahaan marka loo fiiriyo wuxuu noqonaa hepatitis oo ah inflammation in the liver hepatitis naftirkiisu waa laba eray oo isdul saar oo ah hepatic oo ah liver itis oo ah inflammation marka waxay isku wada noqonaysaa inflammation in the liver oo ah caabuq ku dhaca beerka Soomaalina waxay u yaqaaniin cagaarshow dad qaarna waxay u yaqaaniin jaundice sidoo kale cagaarshowga maanta aan ka hadli doono waa 28 July barnaamijkani waa toos u socotaan 28 July sanad walba waxa loo asteeyaa maalinta cagaarshowga adduunka si bulshooyinka loogu wacyigeliyo cudurkan khatartiisa iyo waxyaabaha dadka oo u dhimi karo sidoo kale cudurkan waxa loo yaqaanaa silent killer ama dilaagii aamusnaa oo dadka waa cudur aad iyo aad halis u ah dadka sida u maleynayaan oo aad ugu sii halis ah ما شاء الله aad u mahadsantahay saad nagu jawaabtay waxa kale ku soo sii weydin doona waxyaalaha soo maxkamada cagaarshowga cagaarshow waa su'aal aad u fiican cagaarshowga waxyaabaha sababo cudurkan badanaa wuxuu ka dhashtaa goobaha caafimaadkooda ama goobaha nadaafadooda oo aad ku hooseyso hadii ahaan lahayd goobaha ay dadka ku badan yihiin sida tusaale xiradaha oo maxaan dhahaa oo xabsiyada oo kale iyo meelaha oo dadka oo maxaa oo qaxootiyaasha oo kale meelaha lagu xareeyo meelo badan oo dad badan isku wada kulmaan oo nadaafadooda aad u hooseyso meelahaas oo dhan cudurkan wuu ka dhashan karaa woona sababi karaa inuu cudurkaas meeshaas ka dhashto ما شاء الله aad u mahadsantahay yuu ku badan yahay marka hepatitis viruska yuu ku badan yahay macna okay hepatitis marka fiirino waxa jir ilaa dhowr qaybood ayaa loo qeybiyaa qayb waxa jira hepatitis virus A hepatitis virus B hepatitis virus C hepatitis virus D hepatitis virus E shantan virus ayaa jirto ilaakiin waxa ugu caansan saddex waxa maanta insha Allah barnaamijkan wuxuu sameeyaa laba inaan ka hadalno marka cudurkan hadaa ka hormarna qaybta eega marka ka hadlayno wuxuu aad iyo aad ugu badan yahay dadka caruurta ayuu aad ugu badan yahay sidoo kale dadka waaweynkan uu ku dhacay ilaakiin balse waxa percentage waxa aad iyo aad ugu badan dadka ku dhaca caruurta ayuu aad ugu badan yahay cudurkan oo virus eega ما شاء الله aad ma santahay goobaha uu ku badan yahay hepatitis-ka ama naga sheegi kartaa طبعا waa su'aal aad u fiican goobaha hepatitis virus eega waxa laga helaa goobaha nadaafadooda ee aad u hooseyso sida xiriyaha qaxootiyaasha oo kale iyo meel walba oo nadaafadooda ay hooseyso cudurkan uu ku iman karaa okay doctor sidee ku gudbaan hepatitis viruska hepatitis virus eega siyaabo badan ayuu ku gudbaa ilaa laba qayb oo ugu muhiimsan ayaa ka soo qaadan doona insha Allah qaybta ugu horeysa waxay tahay cuntooyinka oo aanan si fiican loo dhaqin cuntooyinkaas waxa kamid ah cuntooyinka miraha oo kale cuntooyinka qudradaha oo sida loo soo gooyo oo ayagoo si fiican aan loo meerin ama aan loo dhaqin la isticmaalo sidaas viruskaas cudurka cuntooyinkaas wuu soo raaci karaa qofka markuu cuno kadib calooshiisa ayuu tagaa cuntadaas oo cunay kadib calooshii waxaa sii nuugaya mindhiciraha kadib dhiig ayaa lagu sii fasaxaa kadib jirka ayuu sii gaaraya sidaas jirka ayuu u gali karaa qaabka labaad oo cudurkan jirka ku gali kara ama uu ku faafi karo waxay tahay qofka tusaalo kale saxarada qofka way soo gudbinaysaa cudurkan waxay qofka tusaalo kale qofaa soo saxarooday musqul ayuu ka soo baxay gacantiisa si fiican iskaga soo dhaqin bulshadii ayuu soo galay qof ayuu salaamay tusaalo kale cunto ayuu cunay cuntadaas gacantii oo si fiican iskaga dhaqin oo musqushii oo ku soo baxay cuntadii markoo soo fadhiisa oo gacmihi iskaga dhaqin ayaa labadaas markay kulanto qofkii gacantiisa oo waxa viruskaas iyo cuntadii cunaya kadib calooshiisa ayay galaysaa kadib dhiig ayaa la sii raacsinaa kadib jirka ayuu saas ugu sii faafaa marka jirka markuu saas sii galo qofkan cudurkan virus ayuu ku noqonaysaa jirkiisa sidaas ayuu wada qaadaa marka qaabkaas ay jirku galaa cudurkan okay waxa kale ku sii weydinaa aad ugu badan yahay hepatitis virus A
hepatitis virus A-ga wuxuu aad ugu badan yahay caruurta ayuu aad ugu badan yahay dadka waaweynka wuu ku dhici karaa laakiin qaab safmareen ayuu dhahaa cudurkan percentage ugu badan uu ku dhacona waa caruurta okay aad maasanta halis yuu ugu yahay cudurka hepatitis virus A-ga sidaan filayo waxaa dhahday caruurta okay aad maasantahay qaybta oo A-ga waa ka soo tagnay qaybta B ku sii gudbina marka Titor waxa ku weydiinaa sidee ku gudbaa hepatitis virus B-ga okay hepatitis virus B-ga wuxuu ku gudbaa laba siyaabood ayaa ugu waaweyn oo ku gudbo waxaa ka mid ah kow waxa waaye qofka hepatitis virus B-ga qaba waxaa jira dhacaanka ka imaado qof caafimaad qaba hadduu dhacaankaas gaaro qofkaas cudurka B-ga sidaas ayuu ku qabaa waa baqaadaan teeda labaad uu gudbayo waxay tahay qofka in uu dhiiga maxaan dhahaa dhiiga qofka hepatitis virus B ka imaado hadduu gaaro qof kale oo caafimaad qaba sidaas ayuu ku gudbaa labadaas ayaa ugu muhiimsan sidoo kale waxaa ugu dari doonaa ilaa 5 kale oo ugu horeyso hooyada marka uur kale markay dhalayso xilliga oo dhalayso cunuga ay dhalayso way u gudbin kartaa cunugaas sidaas ayuu ku qaadi karaa viruska B-ga sidoo kale dadka isticmaala sakiinta oo timaha lagu xiirto iyo waxyaabaha qalabka timo xiiradka gar xiiradka qof tusaale kale iyo barbieri hataa dadka jooga aad ayay in looga taxadariyaa fiican sababtoo ah qalabkaas waxa lagu xiirayo haddii lagu xiiro qof kale cudurkaas wuu soo gudbi karaa marka meeshaan talo waxa ugu soo jeedinaa dadka barbieriyaasha jooga ama dadka timo jararaas markay tagaan barbieri waxaa aad ku aboon qofka timaha u jarayo marka kow inay dhahaan makiinada ama baashaan inta lagu jaray in loo sameeyo jeermisdile iga sameeyo inuu ka codsado ayaa fiican kadib tintii sidaas loogu xiiro haddii kale waxaa meeshaas aad ugu badan qofka waxaa laga yaabaa qof viruskaas qabay in tinta loogu xiiro adigana isla qofkaas in loogu sii xiiro sidaas viruskaas wuu ku gudbi karaa taas waa qodobka kale oo ku gudbi karo waxay tahay sexual intercourse ama galmada cudurkan aad ay ugu gudbi karaa sababtoo galmada meeshaas waxaa ka dhaxdhacaya waxa waaye waa female iyo male ayaa isku tagaya falkalkaas ka dhaxdhacaya cudurkan wuu ku gudbi karaa sidoo kale cudurkan wuxuu kaloo ku gudbi karaa dadka takhaatiirta oo isticmaala daawo dhaqameedka sida toobinta oo kale iyo sarida iyo ilka bixinta iyo gudniinka iyo dalqagoynta waxyaabahaas dhan oo loo isticmaalo qalabyadaas loo isticmaalo ayagoo si fiican jeermisle fiican loo sameeynin haddii loo adeegsado qof kale cudurkaas sidaas ayuu qofkaas ku gudbi karaa sidoo kale cudurkan wuxuu ku gudbi karaa dadka dhiigga lagu shubo ayagana aad ayay ugu nugul yihiin woona ku dhici karaa intaas ayuu mahadsan tahay ugu badan yahay marka gaar ahaan cudurka hepatitis B-ga hepatitis virus B-ga ilaa 4 dad ayuu ku badan yahay kow waxaa ka dadka goobaha caafimaadka ka shaqeeya takhaatiirta oo kale cudurkan inay ku dhacaan aad ayay ugu fududahay haddaysan lahayn ka hortag aad u fiican sidoo kale dadka qaba HIV AIDS ayagana oo difaacooda hoos u dhacay ayagana sidoo kale aad ayay ugu badan tahay ama ayaa shaki lagu qaba badana inay ku dhacaan sidoo kale cudurka waxaa ku dhici kara dadka kaliyaha laga dhaqo oo kale ayagana cudurkan aad ayay halis ugu yihiin inay ku dhacaan sidoo kale dadka dhiigga lagu shubo ayaga naftirkooda waxaa macquul ah inay ku dhacaan cudurkan okay ma leeyahay wax lagu kala saaro cagaarshowga cagaarshowga waxaa jira ilaa iyo 2 qaybood ayaa jiro qayb oo calaamadihiisa intaysan soo muuqanin koor calaamooyinka waxaa jira qofka 2 qayb ayaa lagu gartaa qaybta 2 qayb ayaa kala bixinayna qayb waa intoosan qofka cagaarka ka soo muuqan iyo markuu cagaarka soo muuqdo hadaa ka hormarno intoosan cagaarka soo muuqan qofka waxaa lagu arki karaa calaamooyin dhowr ah sida qofka waxaa lagu arki karaa bog xanuun ayaa lagu arki karaa labo ayaa lagu arki karaa mantag ayuu qofka dareemi karaa sidoo kale qofka intuu cuntada qaadan kari waayo ayuu qofka isku arki karaa sidoo kale qofka wuxuu isku arki karaa oo qaybta cagaarka intuusan soo muuqanin koor wuxuu isku arki karaa cuntada qofka qaadan kari waayay sidoo kale wuxuu isku arki karaa qofka kor cuncun ama kor xanuun aan dhahay qofka inuu isku arko iyo waxyaabahaas iyo waxyaabo kale ayuu isku arki karaa iyo sidoo kale shuban yar ayuu qofka isku arki karaa Titor ma leeyahay calaamadahan waqti oo jiri karo calaamooyinkan waqti ay jiri karaan way jiraan waa 10 ilaa 14 cisho ayay jiri karaan hadda qaybtan ugu gudubna intoosan cagaarka soo muuqan waa calaamooyinkan iyo waqtigan ayay jiri karaan hadda markuu cagaarka soo muuqdo marka kadib markuu cagaarka soo muuqdo waa xilliga ay Soomaalidu fahmaan in uu qofkan cagaarshowga heeyo xilligan marka calaamado ayaa jira oo lagu garto calaamooyinkaas waxaa kow ka oo caan ah qofka ishiisa in laga dareemo cagaar sidoo kale kaadidiisa qofka marka la fiiriyo oogada sare in ay noqoto guduud sida shahrinjiga oo kale sidoo kale calaamad saddexaad oo markii cagaarka soo muuqato qofka lagu arki karo waxay tahay in oo saxaradiis ay isbedesho oo dambas ama cadaad oo yeelato sidoo kale calaamada kale ee qofka ku muuqanaysa waxay tahay qofka inuu isku arko kor cuncun
sidoo kale calaamada kale ee qofka lagu arki karo markuu cagaarka soo muuqdo waxa waaye dhanka beerka dhinaca beerka inuu ka dareemo xanuun yar intaas ayaa qofka isku arki karaa markay cagaarka markay soo muuqdaan okay aad iyo aad umahadsan tahay waxaan si taaban doonaa point oo aad iyo aad muhiim ah adigana sidaan filaayo waad dareemi kartaa marka waxaa jiro Soomaalida badan waxay aaminsan yihiin cagaarshowga qofka markuu soo muuqdo cagaarshowgaas in la guwaayo kadib marka la guwo qofka caafimaad inuu helayo marka arintaas maxaa ka dhiilayd maxamed waa aad iyo aad ayaa kaaga mahadcelinayaa su'aashan waa su'aal aad iyo aad u muhiimsan oo dadka Soomaalida badan ay aaminsan yihiin arinta wax yar ka dhaho Soomaalida sax waxay aaminsan yihiin cagaarshowg in la gubo kadib qofka uu ku caafimaado balse arintaas waa arin aad iyo aad u khaldan ama Soomaalida ay ka aaminsan yihiin fikrad aad iyo aad u khaldan arintaas cilmi leh oo dhaw waxay noqonaysaa tusaale kale qofkan hore qodobkan waxa cadeynaysa jawaabtan waxay cadeynaysaa qodobkii hadda ka soo baxnay oo markuu cagaarka soo muuqdo waxaan soo sheegnay in ay jiri karaan muddo oo inay jiri karaan 3 ilaa 4 isbuuc ay jiri karaan qofka markuu cagaarka ka soo muuqdo markaas Soomaalida markay arkaan qofka in uu cagaarka ka soo muuqday waxay qofkan fahmayaan in uu cudurkan hayo kadib waxay soo ordayaan dab kadib ay guwayaan marka qofka waxa laga yaabaa muddo 2 isbuuc 3 isbuuc ilaa 4 isbuuc kadib inuu cagaarka ka baabo kadib oo ay u qaataan inuu caafimaad qabo balse ma ahan qofkaas dabkaas inuu ku caafimaaday cudurkan waqtiga oo jiray ayaaba cudurkan waqtiga oo jiray ayaaba 2 3 ilaa 4 isbuuc asaga jiray markuu calaamadaha qofka ka soo muuqdaan calaamada markay ka soo muuqdaan qofka hadii la gubo iyo hadii la gubin asaga waa iska bixi calaamooyinka ilaa waxa jirta waqti cayiman oo calaamadahan soo muuqanay oo 2 3 ilaa 4 isbuuc ay jiri karaan marka qofkaas hadii la gubo iyo hadii la gubinba 2 goor buu ka bixi cagaarkan macnaha gubitaankaas la guwayo ma ahan wax oo ugu baxay gubax cagaarka wuxuu ugu baxay ama uu ka caafimaad qofku waxay tahay xilligii ayaa dhamaanaya maana gubitaanka wax oo qofka uu soo gordhinayo ama oo wax kale ka bedelayo ma ahan ma sha Allah aad u mahadsan tahay cagaarshowga cawaaqibtiisa dambe maxay noqon doontaa waa su'aal aad sidoo kale muhiim ah cagaarshowga cawaaqibtiisa dambe qofka waxay ku sababi kartaa in ay caloosha biyo ka galaan oo halis ah sidoo kale in oo hore waxa uu sheegay cudurkan inuu ku dhacayo beerka sidoo kale beerka markuu ku dhaco cudurkan oo ku bato oo ku soo noqnoqdo viruskan oo ku soo noqnoqdo waxa laga yaabaa inay kansar noqoto kansar hadayna khadana xaaladda qofka bis waayo macnaha waqtigii oo noolaa lahaaba ilaa xagis marka laga soo tago ayaa soo koobmayso law mid ay noqon kartaa qofka in xibintaas dhan laga bixiyo ay noqonaysaa oo beer kale loo raadiyo hadana xididiisa israacsan yihiin siyaabo badan ayaa dhici karta marka waa halis aad iyo aad halis ay u tahay cawaaqibta ka dhalan karta cudurkan cagaarshowga waa mid sida loo Soomaalida u maleeyaan waa aad ay u khatarsan tahay sababtoo ah beerka wuxuu isku bedeli karaa kansar haddoo noqdana waxa waaye aad ay u daran tahay marka ma jiraan siyaabo looga hortagi karo cudurkan cudurkan waa laga hortagi karaa waxaa laga hortagi karaa waxay tahay tusaale qofka marka hore u soo sheegnay cirbida qofka tusaale kale qof oo cagaarshow qaba ayaa cirbid lagu duray cirbidaas qofka lagu diray hadii loo adeegsado qof caafimaad qaba oo lagu duro macnaha cudurkaas qofka uu ku qaadaa marka sababtaas uu ku qaadaa waxaa fiican qofka markii hal cirbid lagu duro cirbidaas marka in la iska turo oo qofka loo isticmaalin si oo gudbitaanka oo fursad aan loo siinin cudurka in uu gudbo tan labaad oo qofka gudbi karo cudurkan waxay tahay dad qaar waxay jiraan oo cadayga isla isticmaalayaan tusaale kale qof caday ku cadaystay cadaygaas markuu ku cadaystay asiga inay ku ekaataan oo qof kale la wadaagay sababta cadaygaas asiga ku cadaystay waxa laga yaabaa qof kale markuu siiyo oo ku cadaysto inuu ku gudbo sidoo kale waxyaabaha ku gudbi karo waxaa ka mid ah tusaale kale tan hadda hore soo sheegnay barbiyeeriyaasha oo kale inay aad iyo aad uga taxadiraan dadka customerkooda haddii kale waxaa laga yaabaa dadka barbiyeer qofkan cudur dadkoo dhan inuu qof hepatitis qabo inuu ku xiro dan qof kale isticmaal dadka customerkiisna ay ka dhimaadaan ay dhintaanba customerkiisa ay ka dhintaan marka qofkan hal waa laga ordaa marka waxa waaye customerka waxaa dhina barbiyeerasha customerkiina alaashada mar walba markaa sameysaan qofka inaa wax u aragtaa inaa ku xirtaa iska guwa ku qaar waxay way guwaan dad qaar jeemis dil ayuu sameeyaan okay waa taas sidoo kale waxa looga hortagi karo waxay tahay dadka oo sexual intercourse-ga oo gudbi kara ayaa soo sheegnay waxaa aad iyo aad u fiican dadkan tusaale kale gabar iyo wiil ayaa rabo inay isguursadaan intaysan isguursanin ka hor waxaa aad iyo aad u fiican inay iska baaraan cagaarshowga si hadhow ubadka dhalan rabo si oo ugu badbaado cudurkan sababta hadduu midkooda qabo waxaa laga yaabaa cunugan dhalan rabo 50% tusaale kale dadkan hadday dhalaan 10 cunug 5 cunug inay cudurkaas qabtaan ayaa laga yaabaa ama waxaa laga yaabaa 3 kamid inay qabto marka bulshadii waxay noqonaysaa bulsho wada cudur qabta marka waxaad aad iyo aad u haboon labada qof inay rabaan inay isguursadaan intaysan isguursan koor
inay iska baaraan cudurkan hepatitis ama cagaarshowga khaasatan qaybtiisa B inay iska baaraan ما شاء الله aad mahadsan tahay doctore maadaama marka waxaan ka rabnaa marka dadka ku fiirsanaya talahan maxaa sii lahayd iyo barnaamijkan cudurkan oo loo yaqaan hepatitis iyo cagaarshowga okay xubinta waa xubin aad iyo aad u muhiimsan oo mar walba barnaamijkeeni aan ku soo qaadan qaybta ugu dambayso insha Allah ko waxa ku talin lahaa waalidiinta waxa talaalka ugu dirayaa in ay ubadkooda u sameeyaan talaal Soomaalida badanaa waxay aaminsan yihiin talaalka in aysan wax fiican ahayn ama xaafadaha marka la keeno caruurta in ay iska mashquulsan yihiin hatta waxaa la sameeyaa haddii caruurtaada ku maqan yihiin dugsi ama iskool inaad ka soo gexaysid talaalkaas aasisid si oo cudurkaas iyo waxaas oo qofka uga hortago oo difaac jirkiisa ugu yeesho teeda kale waxay tahay qofka inuu isticmaalo raashinka nafaqadooda ay badan tahay sida raashinka oo ku jiraan malabka iyo cuntooyinka macmacaan qofka inuu badsado si uu u helo energy fiican balse cuntooyinka macmacaanka markaa ka hadleen waxaa halkan digniin ah dadka qaba cudurka macaanka ama sokorowga dadkaas kuma jiraan in ay isticmaalaan balse dadka kale caadiga dhalinyarta oo kale oo cudurkaas qabin way isticmaali karaan caadi waaye marka insha Allah aad iyo aad u mahadsantahay doctore dhalinyarta idin waxaan dhihi doonaa ku dadaalo waxa doctorka idin sheegay anigana waa kamid tahay oo ku dadaal doona insha Allah hada billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh